madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta gudoomiyay shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada oo uu kula wadaagay guulaha laga gaaray howlgalladii ugu dambeeyay ee dalka looga saaray dagaalyahanada Al-Shabaab. madaxweynaha ayaa golaha uga warbixiyay dadaalada ka socda jiidda hore ee dagaalka isagoo ku tilmaamay in wajiga labaad ee howlgalka laga gaari doono guulo waaweyn isla markaana ciidamada qalabka sida iyo dadka deegaanku horumar muuqda ay sameeyeen furimaha dagaalka. waxa uu sheegay in lagala wareegay deegaano muddo dheer fariisimo u ahaa Al-Shabaab isagoo ku booriyay golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan xukuumadda danqaran inay si laabto doorka ay ka qaadanayaan howlgalka ka dhanka Al-Shabaab. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhinaca kale sheegay in muhiim ay tahay in la dhameystiro dastuurka federaalka ahmiyad gaarna uu leeyahay dowladnimada Soomaaliyeed si loo helo hay'ado isu dheelatiran kuwaas oo sharciga ku shaqeeya. Xamse Cabdi Barre wasiirka koowaad ee xukuumadda danqaran ayaa isna kulanka ka sheegay in xukuumadda ay yagleelayso xilligan amaba yagleeshay laba guddi oo heer wasiir ah kuwaas oo kala ah guddiga taakuleynta ciidamada iyo guddiga wacyigelinta howlgallada xilligan ka socda guud ahaan dalka. shirka golaha wasiirada ayaa maanta lagu ansixiyay hindisa sharciyeedyo iyo heshiisyo caalami ah kuwaas oo ku saabsan dhaqaalaha, caafimaadka, warfaafinta iyo waliba dhismaha golaha culimada Soomaaliyeed. Mahad Mutawakil, Shaaciya TV, Muqdisho.